maqal oo dhegeyso walaalkii ama walaashay qaaliga ahay haddii aad qasaartay hantidaada maalkaaga salaada kaalmayso haddii caruurtaada geeriyoodaan salaada kaalmayso haddii uu khilaaf ka jiro adiga iyo xaaskaaga salaada kaalmayso haddii aadan haysan wax shaqo ah salaada kaalmayso haddii ay musiibo kugu dhacdo salaada kaalmayso haddii aadan awoodin in aad fahanto hal aayad oo quraanka ka mid ah salaada kaalmayso haddii aadan xasuusan waxa ku soo maray salaada kaalmayso haddii aadan haysan biyo wanaagsan dad wanaagsan salaada kaalmayso haddii qalbigaaga cadiidi dareemo salaada kaalmayso dadka haddii ay ku nacaan salaada kaalmayso haddii ay indhahaaga ka dhamaatay ilintii cabsida alle darteed salaada kaalmayso dadka hadday ku dhibaan salaada kaalmayso halkeen walaalayaal aan ka taagannahay aayadda alle balaayo ayaa inagu habsata masiibooyin ayaa inagu dhaca xaaskaagii ama zawjkaagii ayaa kaa dhimatay ama kaa dhintay waalidkii ayaa geeriyooday caruurtii waa ay kaa geeriyoodeen qoysaskii waa ay kala tageen dumarkii waa la furay waa kee oo inaga mid ah masaajidada u carara ama salaada dukada si uu alla weyne ugu qafiifiyo dhibkaasi isaga oo maskaxda ku haya ayadan واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون oo ku raadsada kaalmo sabarka iyo salaada run ahaantii waa wax aad ugu culus oo ku adag waxaanan ahayn alqaashicuun mu'miniinta dhabta ah ee rumaysan alle kuwa adeeca alle si khushuuc ah iyo heebadnimo leh iyo isdhiibiddan oo ka cabsada in badan dhakaabtiisa oo rumaysan yabohiisa jannada iyo wax la mid ah iyo u degistiisa naarta iyo wax la mid ah kuwaasi waa kuwa iyaga huba inay la kulmi doonaan rabbigooda iyo inay xaggiisa u noqon doonaan waa kee oo qalbigiisa ka dareemaya ayadan waa kee oo inaga mid ah qolka aabihii uu dhinto garabka uu ku sido isagoo oynaya oo uu geeyo qabriga durbadiiba ogaado halka loo cararo inay tahay xagga mixraabka waa kee oo inaga mid ah markii uu qasaaro hantidiisa isagoo subaxii ah milyoneer habeenkiina qasaaro la hoyda oo alla u carara oo salaada kaalmaysta waa kee oo sujuud la dhaca waa kee oo u rukuuca waa kee oo ciidda madaxa dhulka u dhiga allihii abuuray waa kee waa imise dad ah ayaa jira oo muddo 2 sano ama 3 sano is-afgaran waa oo kaliya sidaas ku kala taga oo aanan xasuusan inay salaada kaalmaystaan si uu qalbiyadooda alla isugu soo duwo war ma ogtiin inaan la helaynin hooska maalinta kala baxa ah ee alla agtiisa lagu kala carari doono ee cadceedda madaxaada qaban doonto war ma ogtahay cidda hooskaasi harsanaysa inuu ka mid yahay midka qalbigiisa uu ku xiran yahay masaajidka war ma waanan ka xishoonaynin fashilka ugu daran ee qof bini aadam ah uu ku dhaco oo lagu diido inaad harsato harka alle subxaanahu wa tacaala salaada ma ahan in masaajidada la buuxiyo oo kaliya waa inaad qalbigaaga ka dareentaa xasiloonida ka timid xagga alle salaada ma ahan mid lagu xukumo kaafir ayaa tahay muslim ayaa tahay waxaasi ayaa tahay salaada waa liibaanta adduunyo iyo aakhiro allow inaga dhig kuwa qalbiyadooda ku xiran masaajidada salaadana kaalmaysta ee allow waan ku barine ducadeena inoo aqbal yaa allah لا